madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale hanjabaad u diray dawladda Iran kadib markii uu Mareykanku sheegtay weerarkii lagu khaarijiyay General Qasim Soleimani. Donald Trump ayaa sheegay in ay bartilmaameedsanayaan 52 bartilmaameed oo muhiim u ah dawladda Iran. Waxa uu sheegay sidoo kale Donald Trump in meelahaasi la bartilmaameedsan karo ay ku jiraan meelaha ilbaxnimada iyo xadaaradda ee dalka Iran. President Trump seems to believe madaxweyne Trump waxa uu ku qanacsan yahay in habka xaaladda lagu dejin karo ay tahay hadallo iyo ficilo. Waxa uu xal u arkaa in ciidamo loo diro bariga dhexe. waliba waxa uu ku sii goodinayaa bartilmaameedsiga goobo hor leh oo ay Iran leedahay si uu dawladda Iran ugu qasbo dib u garasho. hanjabaadahaasi kadib warar ay heshay shabakadda CNN ee waddanka Mareykanka ayaa sheegaya in asbuucyada soo aadan ay Iran argoosan doonto iyadoo bartilmaameedsan karta saldhigga ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin dalka Qatar iyo danaha dawladda Mareykanka ee waddanka Kuwait. sidoo kale intaasi waxaa dheer in Iran ay bilaabi karto tijaabada gantaalo cusub oo hor leh kuwaas oo cabsi geliya dawladda Mareykanka. I think that the US may waxaan rumaysanahay in argoosi ay Iran samayso uu marmarsiyo u noqon karo duqeymo uu Mareykanku la eegto meelaha muhiimka ah ee Iran sida xarumaha nuclear-ka. gudaha dalka Mareykanka dilkii Soleimani ayaa loo arkaa inuu ahaa gacan dhaaf uu sameeyay maamulka Donald Trump maadaama tallaabo kasta oo laga qaadayo Iran loo baahan yahay in loo sharxo Kongareeska Mareykanka. afhayeenka Kongareeska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa ku tilmaamtay howlgalkaasi mid khatar ku ah muwaadiniinta Mareykanka.